bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal kusoo dhowaada qodobada wararka janalkeena daynila tv ugu door karoon waxaana ka mid noqonaya madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka qaybgalaya shir madaxeedka IGAD duqa magaalada Muqdisho oo kulan la qaatay Francisco Mandera wafdi ka socda Sweden oo gaaray Baydhabo isla markaana kulamo ka bilaabay halkaasi golaha wasiirada Puntland oo baaq ka soo saaray colaada deegaanka shidan kusimaha madaxweynaha oo qaabilay wafdi ka socda qaramada midoobe kursiga ay isku hayaan Soomaaliya Kenya iyo Djibouti oo ay suurtagal tahay in laga dhex bixiyo ugu dambeyntiina dibadbaxyaal lagu dilay dalka Ciraaq daawadayaal intaas waxay ahaayeen qodobadii wararkeena janalka daynila tv ugu door corona intaan u gudagelin qodobadaas oo faahfaahsan marka hore waxaan idinka dalbanaynaa inaad nagu soo biirtaan janalka subscribe saartaan sidoo kale gambalaalka aad furataan si aad uga mid noqotaan daawadayaasha ugu horeeya ay wararkeena u soo dhacaan haatan u diyaar garooba qodobadii aad maqasheen oo faahfaahsan madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka qaybgalaya shir madaxeedka IGAD madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi uu hogaaminaya ayaa u ambabaxay magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya halkaas oo ay kaga qaybgalayaan shir madaxeedka caadiga ahaa ee urur goboleedka IGAD madaxda dalalka IGAD ayaa ka arinsanaya qorshe cusub oo dib u haween loogu sameynayo urur goboleedka IGAD kaas oo ku saleysan in ururku uu si siman ugu turjumo dhammaan danaha dalalka ku boobay sidoo kale madaxdu waxa ay ka wada hadli doonaan xoojinta iskaashiga ka dhaxeeya dalalka gobolka ee dhinacyada dhaqaalaha iyo nabadgelyada sidoo kale hogaamiyaasha IGAD waxa ay iska xog wareysanayaan qorshayaasha lagu guuleystay ee ku aadan dadaalada lagu xasilinayo wadamada gobolka iyaga oo warbixino ka dhageysanaya guddi madaxeedyada u xilsaaran fulinta heshiisyadii hore iyo caqabadaha haatan jira madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa la wadaagaya madaxda dalalka IGAD aragtida dowladda federaalka Soomaaliya ee ku saleysan dib u haweynta urur goboleedkan si uu u noqdo madal ay ka muuqdaan danaha wadajirka ah ee dalalka gobolka inta shirkan lagu guda jiro madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa kulan daceedyo la qaadan doona madaxda dalalka gobolka ee ka soo qaybgalaya shirkan dowladda federaalka Soomaaliya oo xaqiijinaysa siyaasadeeda ku aadan gobolka ayaa kaalin muhiim ah ka qaadanaysa dadaalada ku qotama nabadeynta iyo kor u qaadida iskaashiga dhaqaale ee gobolka duqa magaalada Muqdisho ayaa kulan la qaatay Francisco Mandera gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish ayaa xarunta aqalka dowladda hoose Xamar kulan kula qaatay ergeyga midowga Afrika u fadhiya Soomaaliya ee Francisco Mandera mas'uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir iyo AMISOM ayaa ka wada hadlay sugidda amniga caasimadda la dagaalanka xarakada al-shabaab iyo u diyaar garowga arrimaha doorashooyinka soo socda duqa magaalada Muqdisho ayaa dhawaan waxa uu waday kulamo uu la qaadanayay gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir saraakiisha ciidamada militariga Soomaaliya iyo madax kale isaga oo kala hadlaya arrimo la xiriira amniga caasimadda magaalada Muqdisho oo ay gadi ka wada dhacayaan doorashooyinkaasi isla markaana ay ka soo qaybgalayaan madax kala duwan oo ka imaan doonta daafaha dunida isla markaana ay magaaladu u sii dheer tahay caqabadihii ku saabsanaa dadka malaayiinka Soomaaliyeed ee aan la kala garanaynin ee ku dhaxnool kuwaas oo ay hor yaalaan madaxda gobolka Banaadir in ay amnigooda sugaan kulanka ayaa gudoomiyaha gobolka Banaadir waxa ku weelinaya gudoomiye ku-xigeenka dhinaca maamulka iyo maaliyadda Ibraahim Mahad Alle gudoomiyaha habeenka gobolka Banaadir Jawaahir Barqab iyo xubno kale wafdi ka socda dowladda dalka Sweden ayaa gaaray magaalada Baydhabo ee xarunta kumeel gaar ku ah maamulka Koonfur Galbeed halkaasna waxa ay ka wadaan kulamo isla markaana ay ka bilaabeen markii ay gaareenba safiirka dowladda Sweden u jooga dalka Soomaaliya ayaa gaaray magaalada Baydhabo ee xarunta kumeel gaarka ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed
waxa uuna kulan la qaatay wasiirka wasaaradda haweenka, arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Marwo Faa'iza Shariif Nuur iyo shaqaalaha wasaaraddaasi. sidoo kale waxa uu kulanka la qaatay wasaaradda waxa goobjoog ka ahaa gudoomiyaasha haweenka gobolada Baay iyo Bokool iyo gabdhaha aqoon-yahanada Koonfur Galbeed, iyaga oo kulanka ka sheegay in haweenka Koonfur Galbeed u baahan yihiin garab istaaga, walow meeshaasi ay ka muuqato in ay ka maqan yihiin haweenkii gobolka Shabeellaha Hoose iyo hogaankooda, taasi oo loo sababeyn karo in ay jirto wada shaqeyn la'aan dhinaca wasaaradda haweenka, maadaama ay ku martiqaaday gedi hogaanka haweenada gobolada la midka ah Koonfur Galbeed sida Baay iyo Bokool, maadaama Shabeellaha Hoose ay ka tirsan tahay Koonfur Galbeed. safiirka dowladda Sweden u jooga dalka Soomaaliya Ambassador Stephen Talander ayaa ballan qaaday inuu si buuxda u garab istaagi doono wasaaradda haweenka iyo guud ahaan haweenka ku dhaqan deegaanada Koonfur Galbeed, baaqaas oo rajo gelinaya haweenka ku dhaqan gobolka Shabeellaha Hoose, maadaama safiirku si wadar ah u ballan qaaday haweenweynaha ku nool maamulkaasi inuu la shaqeyn doono. golaha wasiirada Puntland ayaa baaq ka soo saaray colaadda deegaanka Shidan. shirkii golaha wasiirada Puntland oo uu shir gudoominayay madaxweyne ku-xigeenka ahna kusimaha madaxweynaha Puntland Mudane Axmed Cilmi Cismaan Karaash, waxaa toddobaadkan looga hadlay amniga guud ee maamulka Puntland. wuxuu goluhu baaq nabadeed u diray xaaladda colaadeed ee ka jirta deegaanka Shidan ee gobolka Sanaag, iyadoona goluhu uu uga digay cid kastoo horinta ka qayb qaadanaysa in ay ka waantowdo. goluhu waxa uu warbixin ka dhageystay wasaaradda deegaanka, beeraha iyo isbeddelka cimilada oo ka warbixisay waxqabad la xiriira guulaha laga gaaray joojinta xaalufka deegaanka iyo guddiga kala xadeynta shaqooyinka hay-adaha iyo wasaaradaha oo iyana goluhu u soo gudbiyey qorshayaasha shaqo ee ay dejisteen iyo sida ay u kala horeeyaan. arrimaha kale ee laga hadlay waxaa ka mid ah saameyntii roobabkii ka da'ay gobolada Gaardafuu, Sanaag iyo Cayn iyo halka uu marayo gurmadka loo fidinayo goboladaasi. ugu dambeyntii goluhu wuxuu soo jeediyey in guddiyada xukuumadda ka tirsan ee ka kooban 4 guddi ay baarlamaanka uga warbixiyaan waxqabadkii xukuumadda ee 9 bilood ee u dambeeyay, taas oo qayb ka ah wada shaqeyn golayaasha dowladda iyo in shacabka lala wadaago waxqabadka xukuumadda. walow golaha baarlamaanka laga yaabo in ay dhaliilaan in guddi uu hor yimaado halkii golaha looga bartay in ay u yeeraan shaqo waliba wasaaraddii ay qusaysay wasiirka uu hogaamiyo, sidaasna ay ugula xisaabtami jireen, balse tabtan ayaa waxa ay u muuqataa mid baarlamaanka looga indhasarcaadinayo wasiirada, taasoo uu doonayo madaxweynaha hogaamiyo Puntland in ay marnaba isqaban xukuumadda iyo baarlamaanka, maadaama isaga kol hore uu baarlamaanka dhexdiisa ku fashilmay isla markaana caro uga soo baxay su'aalo kulkulul oo uga yimid dhanka baarlamaanka. madaxweynaha ayaa kadib waxa uu qaaday tallaabo uu baarlamaanka uga dhigayo mid isku fikir ay yihiin, sidaasna uu goobta uga saaray ama xilka uga qaaday gudoomiyaha baarlamaanka, maadaama la sheegay xildhibaanada xilka ka qaaday gudoomiyaha baarlamaanka inuu isaga ka dambeeyay. kusimaha madaxweynaha Soomaaliya ayaa qaabilay wafdi ka socday qaramada midoobay. kusimaha madaxweynaha jamhuuriyadda ahna gudoomiyaha baarlamaanka aqalka hoose ee Soomaaliya Mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa xafiiskiisa ku qaabilay ku-xigeenka madaxa xafiiska howlgalka kaalmeynta qaramada midoobay ee Soomaaliya UNISOM Resando Senechiche ayaa sidoo kale ah ku-xigeenka ergeyga gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya, waxaana kulankaasi ku wehelinayay mas'uuliyiin kale oo isla xafiiskaasi ka tirsan. kulanka intii uu socday waxaa looga hadlay dhowr arrimood oo ay ka mid yihiin doorashada la filayo in ay ka dhacdo Soomaaliya 2020 ilaa 2021 iyo sidii loo dedejin lahaa dhammaan shuruudaha muhiimka u ah howlaha doorashooyinka uu hadda golaha gacanta ku hayo.
kursiga ay isku hayaan Soomaaliya, Kenya iyo Djibouti ayaa suurtagal ah in laga dhex bixiyo. Kulan madaxeedka caadiga ee urur goboleedka IGAD ayaa markii ugu horeysay muddo 10 sano ah bari ka dhacaya magaalada Addis Ababa xilli qaar ka mid ah dalalka xubnaha ka uu ka dhaxeeyo khilaaf xooggan. Kulankan ayaa lagu go'aamin doonaa cidda noqon doonta gudoomiyaha cusub ee ururka, waxaana sidoo kale si rasmi ah loogu xaqiijin doonaa xogayaha cusub ee ururka oo ah wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Ethiopia Workinina Kibiyuhu. hase yeeshee khilaaf u dhaxeeya Djibouti iyo Kenya ayaa hogaamin kara in labadooda iyo Soomaaliyaba ay ku waayaan in madaxdooda ay bedelaan gudoomiyaha xilka ka degaya ee Abiy Ahmed. wargeyska Daily Nation ayaa ilwareedyo diblomaasiyadeed ka soo xigtay in Soomaaliya iyo Djibouti oo ka soo horjeeda in hoggaanka ururka ay qabato Kenya ay diideen inay mowqifkooda bedelaan. sida ay sheegeen diblomaasiyiinta xogtan bixiyay, waxaa sidaas darteed suurtagal ah in saddexda dalba ay waayaan xilkan loona doorto dal kale. kursiga wuxuu aadi karaa Uganda ama Suudaan, ayuu yiri sarkaal la hadlay Daily Nation oo sheegay in tallaabadaas loo qaadi karo si looga fogaado isku dhac yimaada. Kenya ayaa Djibouti dhowaan kaga adkaatay helidda taageerada ururka Midowga Afrika oo ayiday musharaxnimada Kenya ee kursiga golaha ammaanka ee qaramada midoobay. ha yeeshee Djibouti ayaa diiday in ay ka harto loolanka, waxayna Midowga Afrika ku eedeysay inaysan codayntii ay Kenya ku adkaatay u marin nidaamkii saxda ahaa. Soomaaliya oo taageero u muujisay Djibouti ayaa sidoo kale qaadacday tallaabooyin ka dhan ah Nairobi. Muqdisho iyo Nairobi ayaa waxaa ka dhaxeeya xiisad ka dhalatay muran badeed oo hadda ay u fadhiso maxkamadda caalamiga ICJ. IGAD ayaa ka cabsi qabta in haddii kursiga la siiyo Kenya iyadoo ay diidan yihiin Soomaaliya iyo Djibouti ay xiisad hor leh ka sii dhex abuuri karto ururka, waana taas sababta ay macquulka u tahay in dal aan saddexdaasaba ahayn la siiyo. waxaa sidoo kale soo kordhay murankaasi kadib heshiis ay wada gaareen labada madaxweyne waa Uhuru Kenyatta iyo madaxweyne Farmaajo, kaas oo xoogaa muujiyay isku soo dhawaansho labada dal ah, walow la sheegay in arrinta badda ay ka baxsan tahay isla markaana ay isku fahmeen in loo daayo maxkamadda ICJ. madaxweyne Farmaajo oo shirkan ka qayb galaya iyo Uhuru ayaan la ogeyn madaxweynaha Soomaaliya sida uu uga jawaabi doono go'aanka dowladda Djibouti oo weli ku adkeysanaysa in ay ka soo horjeedo codayntii loo sameeyay dowladda Kenya. madaxweyne Farmaajo waxaa laga yaabaa in mowqifkiisa ku aadan kursigaas uu ka aamuso maadaama uu dhowaan heshiis la galay dowladda Kenya, lagana yaabo in heshiiskaas uu ka baqayo in uu burburo. walow dowladda Soomaaliya iyo dowladda dalka Djibouti ay yihiin dowlado walaalo ah oo wadaaga isirka, afka iyo midabkaba, waxaana saadaasha ay bixinayaan siyaasiyiinta ah mid u badan in madaxweyne Farmaajo uu taageero dowladda dalka Djibouti maadaama uu ka baqayo in shacabka Soomaaliyeed ay kacdoon ku sameeyaan. ugu dambeyntii dibadbaxyaal ayaa lagu dilay dalka Ciraaq. ciidamada ammaanka Ciraaq ayaa toogasho ku dilay ugu yaraan 13 qof oo dibadbaxyaal ah magaalada koonfureed ee Nasriya, sida ay sheegeen ilo wareedyo caafimaad. dhimashada dadkan ayaa timid kadib markii ay isku dhaceen dibadbaxyaasha iyo ciidamada ammaanka oo doonaya in ay ka saaraan laba ka mid ah buudooyinka ugu waaweyn ee magaaladaasi. 100 qof oo kale ayaa sidoo kale ku dhaawacmay isku dhacyada, waxaana lagu waramayaa in qaar ka mid ah ay xaaladoodu halis tahay. dhimashadii ugu dambeysay ayaa tirada guud ee dadka ku dhintay dibadbaxyada Ciraaq tan iyo markii ay bilowdeen bishii Oktoobar ka dhigaysay 360 iyadoo oo 15,000 oo kale ay ku dhaawacmeen. mas-uuliyiinta ayaa dhinaca kale bandow ku soo rogay magaalada Najaf kadib markii la gubay qunsuliyadda Iiraan ay ku leedahay halkaasi. cusbitaalka ama gubitaanka qunsuliyadda Iiraan ayaa ka sii dartay rabshadaha iyo dibadbaxyada ka socda dalka Ciraaq toddobaadyo
kuwaasi oo lagu doonayo in lagu rido dowladda dalkaasi oo loo arko mid musuqmaasuq ah isla markaana ay taageerto Iiraan. Ra'iisul Wasaaraha Ciraaq Adel Abdel Mahdi oo ah la taliyaha ugu sareeya ciidanka militariga dalkaas ayaa madaxda militariga u diray dhowr gobol si ay dib ugu soo celiyaan kala dambeynta sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay militariga. daawadayaal guud ahaan warkii aad kala socoteen channelkeena Daynila TV waa nageynta intaan warkiciga ku kulmi doono bahda iyaga isku duuban waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.